hay-ad laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa deeq dawo ah gaarsiisay isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa mar kale ka waramaya. deeqdan dawada ay maanta la gaarsiisay isbitaalka xoogga ayaa mid loogu talagalay ciidamada xoogga dalka ee ku jira isbitaalka xoogga si loo tacaalo xaaladooda caafimaad iyo ka qayb qaadashada musiibadii qaran ee 14 bishan ka dhacday isgoyska Soobe oo ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka. madaxda hay'adda Breji oo hay'adda laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay Soomaaliya u yimaadeen si ay uga qayb qaadan lahaayeen isla markaana ummadda Soomaaliyeed oo la qaybsan lahaayeen musiibadii qaran ee ka dhacday magaalada Muqdisho. Dr. Isa Khadiija Imaan Caynte agaasimaha isbitaalka xoogga oo horeen ka hadashay madasha ayaa ugu mahadcelisay madaxda hay'adda Breji deeqda ay soo gaarsiiyeen. aadaan ugu faraxsanahay inay noo yimaadeen wax yar ay gacanta ku wadeen oo sambulan way noo keeneen laakiin wixii kalena way soo socdaan wixii baahideena dhan ay arkeen marka wixii baahideena dabooli karo dhan way ballan qaadeen ayagana noo keeni doona aadayna u mahadsanyihiin Talyaaniga ugu horeysa Talyaani inuu hadda caawiyo meeshan aan joognana ayaga sameeyay meesha kale cusubna ayaga dhisoo hayo mar walba gacantooda waa soo gaari jirtay. Dr. Kuludi Tabareti oo ka mid ah madaxda hay'adda Breji ayaa ugu horeen ka mahadceliyay sida wanaagsan loo soo dhaweeyay isagoo sheegay inay diyaar u yihiin sidii isbitaalka xoogga loo dhameystiri lahaa agabkiisa caafimaad. Comunque sono qui solamente per fare un sopralluogo. In pratica vediamo 3 ospedali, credo. Vediamo quali sono. Aragno waxyaabaha uu baahan yahay isbitaalka xoogga si aan ugu baahitirno oo aan garab istaagno in la helo agab dhameystiran oo lagu caawiyo ciidanka xoogga dalka. agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda hay'adda ayaa si wadajir u booqday qolalka isbitaalka xoogga ay jiifaan qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee ku dhaawacmay musiibadii qaran ee 14 bishan ka dhacday isgoyska Soobe iyo kuwa laga keenay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Dhexe. agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Sankor Geere ayaa ugu horeen ugu mahadceliyay taageerada dowladda Talyaaniga ee siisa Soomaaliya isagoo sheegay in isbitaalka xoogga uu noqon doono mid loo dhameystiro agabkii caafimaad. aan ku dadaalana wasaaradda gaashaandhigga in isbitaalkan uu noqdo isbitaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku soo talagalo kan dhaawacma inuu soo dayacmin isbitaal danaho oo aan lacagna looga qaadana uu noqdo isbitaal dhammaan adeegyada caafimaadka sameeyo. waxaan ilaahay ka rajeynayaa sanadkan gudihiisa inuu bilowdo mashruucaasi ciidamada Soomaaliyeed ay helaan meel ay dhaawacooda iyo gurmadkooda looga fidiyo. Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.